xogeenka agaasimaha guud gudoomiyaha gobolka degmada xildhibaanka kulmiye UNDP saxaafadda community kale ee meesha aan ugu nimi iyo intii aan dhaafay wax ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan u mahad celinayaa in la intii halkan wasaaradda ugu horeyso oo UNDP ay ku xigto oo ay ku xigto ciddii dhistay kambanigii dhisay oo odayaashu ay ka mid yihiin kuwii ilaaliyay meesha oo community ka mid yihiin waa u mahad celinaya aad iyo aad baad u mahadsantihiin meeshtani waxay muhiimadda ay leedahay waa la sheegay hadda ku noqon maayo sidii loo ilaaliyana waa la sheegay oo odayaasha iyo maxay ahaytoy wasaaradda ayaa ka sheekaysay aad iyo aad bay u nasiib badan tahay salaxri runtii biyo-qabatinka intaa leeg haddii ay iyadu heshay oo nasiib u heshay way nasiib badan tahay sida odayga gurxan u hadlayana aad bay macnaheeda way garanayaan oo way ilaashanayaan oo macnaha ay leedahay bay fahmayaan waa u mahad celinayaa iyana marka waxaan ku soo gabagabeynayaa saakan waxaa laygu dhiibay inaan idinna mahad celiyo inoona furo biyo-xidheenkii maanta inaynu furanno waa inoo furan yahay waana idin mahad celiyey wixii aad ka sheekayseen ee ahaa ilaalintiisa waa ka ballamaynaa waxa weeye sida loo maamulayana wasaaradda ayaa idiin sheegtay kuyo kalena haddii alla yidhi waa ku soo kordhin doonaayo hay-adda bixisay markii la arko inay meeshii la manaafacadsanayo ama la ilaashanayo wasaaradda iyo maxay tahay iyo hay-adda UNDP iyo hay-adaha kaleba waxaan rajaynaynaa biyuhu manaafacaadka ay leeyihiin waa naqaanaa biyuhu waa nolosha marka hay-adaha waxaanu iyo wasaaradaha iyo ciddii ku shaqale waxaanu ku boorinaynaa in maanta haddii ilaahay ina qaboojiyey meelo badnoo biyo u baahnay way jiraan laakiin in wax kale loo bedelo biyo dhaamiska in loo hor jiray in loo bedelo biyo xidheenno ceelo la qodo warahan oo kale oo la qodo wax kale loogu bedelo wixii meeshii aynu biyaha maxay tahay ka dhaamin jiray hay-adaha ayaanu ciddii waxaysa baanu iyana usii faraynaa fariintaa